السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بخياري رمضان مبارك. وحان رجيني إن الدمانتي وناكسنتيهين كسو هذا موضوع كله iyo مواضيع دي أنا halkan idin kula wadaagi jiray kadib markii la xaqiijiyay in diyaarad dagaal oo nooceedu yahay kuwa shidaalka siiya diyaaradaha dagaalka ee kale ee dalka Mareykanka lagaga soo riday dagaalka ka soconaya wadanka Iran waxa isa soo taraya walaaca Mareykanku ka qabo khasaaraha dagaalkani in uu ka badan karo intii uu filayay markii hore taasi oo keeni karta bay yiraahdeen in shacabka Mareykanku ku kaco xukuumadda Trump oo durba taageeradeedu hoos si weyn ugu dhacday gudaha dalka Mareykanka xogtan waxa aan idin kula wadaagi doonaa faahfaahin la xidhiidha haddaba diyaaradda weyn ee shidaalka hawada ku siisa diyaaradaha dagaal ee kale taasi oo mid kamid ah Mareykanka lagaga soo riday dalka Ciraaq saacadihii la soo dhaafay hadalhaynteeduna si weyn gudaha Mareykanka ay uga gariirisay Boeing KC 135 Stratotanker waa diyaaradda shidaal siinta diyaaradaha dagaal ee hawada dabayaaqadii sanadihii 1940 iyo bilowgii sanadihii 50 markii uu bilowday dagaalkii qabooba Cold War Mareykanku waxa uu si degdeg ah u fahmay in awoodda hawada air power aanay ku xidhnayn oo kaliya tirada diyaaradaha dagaalka balse ay ku xidhnaan doonto inta ay gaari karaan iyo inta ay hawada ku jiri karaan midowga Sovieti USSR waxa waqtigaasi lahaa ama uu ka hawlgeliyay dhul ballaaran iyo saldhigyo fogfog oo military oo uu daafaha dunida ku kala lahaa tani waxa ay ku qasabtay Mareykanka in uu yeesho diyaarado awood leh gaar ahaan diyaarad shidaal oo ujeedadeedu tahay in ay shidaalka siiso diyaaradaha dagaalka iyada oo hawada ku jirta in ay kordhiso masaafada gantaalada iyo diyaaradaha nuclear-ka qaada in ay suuro geliso weeraro ama hawlgalla ka dhaca qaarada kale halkaas ay ka dhalatay fikradda aasaaska ama soo saaridda diyaaradda nooceedu yahay KC 135 Stratotanker waa diyaarad saldhig u noqotay awoodda cirka Mareykanka muddo ka badan 60 sano goorma ayaa la sameeyay ama la soo saaray diyaaraddan shirkadda soo saartay waa Boeing oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee wax soo saarka diyaaradaha gaar ahaan waa shirkadda ugu weyn dunida oo Mareykanku iska leeyahay sanadka naqshadaynta diyaaraddan waxa la naqshadeeyay sanadkii 1954 duulimaadkii ugu horreeyay waxa ay hawada gashay sanadkii 1956 adeega rasmiga ah waxa ay guda gashay sanadkii la tijaabiyay kadib sanadkaasi xigay ee 1957 waxa ay noqotay mid qabata adeegii loogu talagalay waxaanay durbadiiba diyaaradaha dagaal ee Mareykanku hawada ku heleen shidaal KC 135 waxa ay ka dhalatay naqshadii diyaaradda ganacsiga ee Boeing 367/80 taasoo sidoo kale saldhig u noqotay diyaaradda rakaabka qaada ee Boeing 707 markii hore diyaaraddan waxaa loo sameeyay ama ujeedada loo soo saarayay ay ahayd in ay diyaaradaha bambooyinka nuclear-ka xambaara sida B-52 iyo kuwa kale ay hawada ku siin karto shidaalka balse markii dambe noocyo kala duwan oo diyaaradaha dagaalka ah ay farsamo ahaan dhammaantood shidaalka siin kartaa oo ay hawada ku quudin kartaa awoodda iyo xilka ay qabato hawsha ugu weyni waa shidaal siin hawada ah aerial refueling KC 135 waxa ay hawada ku siisaa shidaalka diyaaradaha dagaal ee noocyadoodu kala yihiin F-15 F-16 iyo F-35 diyaaradaha bambooyinka xambaara diyaaradaha sahanka sameeya xataa mararka qaar diyaaradaha dalalka xulafada ah waxa ay isticmaashaa boom system oo ah tuumbo adag oo gadaal ka baxda taasi oo si toos ah ugu xidhanta daloolka taangiyada diyaaradaha dagaal ee shidaalka qaadanaya waana hanaan farsamo oo aad u sareeya awoodda diyaaraddan shidaal qaadideedu waa in ka badan 90,000 oo kilogram oo shidaal ah masaafo dheer oo duulimaad ah ayay samaysaa xawaare sare oo la jaan qaadi kara diyaaradaha dagaalka ayay leedahay oo joog aad u sareeya ayay diyaaradaha ku siisaa si ay uga gaashaantaan weeraro dhulka kaga yimaada muddada ay shidaalka isa siinayaan diyaaraddan waxa saaran shaqaale ka kooban 3-4 qof ilaa 6 qof hawlo kale oo ay qabato ayaa jirta tusaale ahaan waa gaadiid xamuul oo fudud gaadiid dhinaca askarta ah ayaa waqtiyada qaarkood loo adeegsadaa qaar ka mid ah noocyada diyaaradahani waxa ay qabtaan sirdoon iyo warisgaarsiin maxay muhiim ugu tahay ciidamada Mareykanka diyaaraddani KC 135 waa lafdhabarta awoodda ciidanka cirka Mareykanka sababta oo ah waxay suuro gelisaa in Mareykanku duulimaad ka sameeyo gudaha dalkiisa kuna gaadho meel kasta oo dunida ah waxa ay kordhisaa waqtiga ay diyaaradaha dagaalku hawada ku sii jiri karaan iyaga oo hawlgalla dagaal soo fulinaya kadibna si dhib yar hawada shidaalka ugu qaadanaya oo haddana dib u laabanaya waxa ay taageertay diyaaraddani
dagaallo badan sida dagaalkii Vietnam ee Maraykanku ku qaaday dalkaasi Vietnam, dagaaladii kala dambeeyey ee gacanka sida kii 19 ilaa kii 2003 iyo kuwii kale sida dagaalkii Ciraaq oo kale, sidaas la mid ah dagaalkii Afghanistan iyo Maraykanka. iyadoo haddaba aan KC-135 jirin, diyaaradaha dagaalku ma gaari lahayn masaafooyin fogfog ama diyaaradahaasi dagaalkuma ayna sii jiri lahayn hawada muddo dheer. markaas diyaaradani waa biriishka isku xidha saldhigyada militari iyo dagaalka hawada. imisa diyaaradood oo noocan ah ayuu Maraykanku haystaa ayaa la isweydiiyey. xogaha ugu dambeeyey, gaar ahaan xogta shabakadda arrimaha militariga dabagurta ee Global Firepower, waxa ay sheegtay in uu Maraykanku haysto ku dhowaad 732 diyaaradood oo noocan ah. hadda Maraykanku waxa uu adeegsadaa ku dhowaad 370 ilaa 400 oo ah KC-135. qaarkoodna dib u casriyeyn ayaa lagu sameeyey. waxa ay si tartiib ah u bedelayaan diyaarad cusub oo la yidhaahdo Boeing KC-46 Pegasus. dalal kale ma iibsadeen diyaaradan? dalal dhowr ah ayaa isticmaala KC-135 oo ka iibsaday dalka Maraykanka. dalalkaasi waxaa ka mid ah Faransiiska, Turkiga, Singapore iyo Chile oo ka mid ah dalalka Latin America. qaar waxay si toos ah uga iibsadeen Maraykanka, qaarna waxa ay heleen agabkeeda kadibna iyaga ayaa dib u farsameeyey military transformation. KC-135 Stratotanker ma aha oo kaliya diyaarad shidaalsiin ee waa astaan muujinaysa sida Maraykanku u qorsheeyey awood dhinaca hawada ah oo caalami ah. in ka badan 60 sano oo adeeg ah kadib waxa ay ku jirtaa howlgallo firfircoon. wakhtiganna waxay ka qayb qaadanaysaa in ay diyaaradaha dagaalka hawada ku siiso shidaalka, gaar ahaan diyaaradaha Maraykanka iyo Israel. inkasta oo jiilka cusub ee sida KC-46 uu soo baxay, haddana KC-135 weli waxaa lagu tilmaamaa geesiyad duq ah oo uu Maraykanku haysto. xaaladda xogta diyaaradan haddaba la soo riday haddii aynu u soo noqonno kadib colaadda dagaalka Iiraan iyo Maraykanku markii ay gashay weji kale oo lama filaan ah, iyo filashadii Maraykanka ee dagaalka oo isbedeshay kadib markii uu batay khasaaraha ka soo gaadhay dagaalku. waxa gudaha dalka Maraykanka ka taagan dood culus oo ka dhalatay markii uu daraad Maraykanku xaqiijiyey dhimashada 6 sarkaal ama 6 askari oo ahaa kurugii diyaaraddaasi burburtay oo ah diyaaradan KC-135 ee ah kuwa shidaalka diyaaradaha kale hawada ku siiya. mas-uuliyiinta Maraykanku waxay xaqiijiyeen dhimashada 6daas askari oo durbaba eheladoodii la gaadhsiiyey geeridooda. waxay noqotay xaalad warwar leh oo soo food saartay qoysas badan oo askartoodu ka qayb galayaan dagaalka. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in diyaaradda ay saarnaayeen 6 xubnood. waxa kale oo ay sheegeen in magacyada dadka dhintay la shaaciyey kadib markii qoysaskooda markii hore lala wadaagay. waxaana la xaqiijiyey in ay ku burburtay dalka Ciraaq fiidnimadii Khamiistii, sida ay sheegeen ciidamada Maraykanku, iyaga oo sheegay in ay ku dhacday hawada dal ay ku sheegeen mid saaxiib ah. taliska dhexe ee Maraykanka ee loo yaqaano Central Command ayaa sheegay in diyaaraddaasi military ee shidaalka bixisa KC-135 ay burburtay kadib markii ay diyaarad kale isku dhaceen, iyaga oo ku tilmaamay shil military. balse waxaa arrintaasi meesha ka saaray wararka ka imanaya dalka Ciraaq oo sheegay in diyaarad nooceedu yahay kuwa isqarxiya ee droniska loo yaqaano lala beegsaday diyaaraddaasi oo hawada maraysa, halkaana lagu burburiyey. diyaaradda shidaalka bixisa waxaa loo isticmaalaa in shidaal hawada lagu siiyo diyaaradaha dagaalka. koox maleeshiyaad ah oo ay Iiraan taageerto ayaa sheegtay in ay weerar ku qaadeen diyaaraddaasi military. kooxdu waxay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen diyaaraddaasi militariga Maraykanka si ay u difaacaan madax bannaanida qaranka Ciraaq iyo sidoo kale taageerada dalka Iiraan ee ku jira bay yidhaahdeen halganka ay kaga hor imanayaan Israel iyo Maraykanka. Maraykanku waxay sheegeen in aanay wax rasaas ahi mid saaxiib ama mid cadow ahi toona aanay ku dhicin diyaaraddan, balse ay ahayd shil kadib markii ay diyaarad kale isku dhaceen. arrintaasi oo ah midda laga beeniyey dhinaca iyo dalka Ciraaq. warbaahinta madaxa bannaan ayaa iguna xaqiijiyey in diyaaraddaasi la soo riday. isku soo wada duubo, waa mid ka mid a khasaarihii ugu cuslaa ee Maraykanka ka soo gaadhaya dagaalka 2 wiig soconaya ee uu ku qaaday dalkaasi Iiraan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.